Hidayah. dida halkan joogta ee ka mid ah caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed ururka shaqaalaha ee dhismaha iyo halkan xarunta gudowrada shaqaalaha Soomaaliland ku qabanaya shirkooga maanta shirkeena tahay ujeedadu waxa weeyaan in laga hadlo ajaanibka dawladdu dhowr sano oo hore waxa ka soo saartay go'aamo laakiin ma socon tan maantana cabashadana waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa inay dawladdu ajaanibka naga saarto nagana qabato ururada shaqaalaha Soomaaliland waxay u dhisan yihiin kow ujeedada u dhisan waxa weeyaan inay difaacaan xuquuqda shaqaalaha Soomaaliland xuquuqdaasi kow ka tahay noloshooda noloshaan ka hadlayna maanta xubnaha halkan jooga maahay waa xitaa caruurtoodii iyo xaaskoodii iyo ehelkoodii nin kastaba u shaqaynayay markuu shaqo beelay dhammaan waxaas oo dhan meesha way ka baxeen cabashada ujeedinayna waxa weeye markaa guud ahaan ururka shaqaalaha dhismaha macal caruurtooda noloshoodii inaan halkan maanta kaga dhawaaqno oo leen dawladdu halkaasi noloshoodii beelaha bay qodobkaan sii cuskanna waxa weeyaan dastuurka qodobka labaatanaad ee dastuurka dawladdu waxaan doonaynaa iyo baarlamaanaba inay akhriyaan dastuurka dib loo eego qodobka labaatanaad 3 xaraf baa ku yaala waxa ku yaala kow shaqada waa xaquuq uu leeyahay muwaadin kasta oo gudan kara micno kale qofku muwaadin yahay shaqadii gudan karo dastuurkaaba ku qasbay diyaar baan u lahay shaqadii dawladda halkaas qodobka labaatanaad isla xarbiisa saddexaad shaqaaluhu waxay u leeyihiin xuquuq inay mushaharkooda urur ahaan iyo qof ahaanba kula gorgortamaan gorgortankayagan maanta mushahar ma taagna waxaanu taaganahay nolol ahaan baanu taaganahay oonu leenahay qodobka afraad ee xarafka afraad ee isla qodobka labaatanaad dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay dhexdhexaadi ka abuurto loo shaqeeyaha shaqaalaha iyo loo shaqeeya cabashadayadani maadaama ay tahay shaqo loo shaqeeyayaasheedii aanu ka cabanno nooc kastaba ha noqdee haddaynu safgaran weyno dee dawladdu iyo artikalkaa fulisa dastuuriga ah inay dhexdhexaadin noo samayso ayaanu u baahnay inta haddaan kaga baxa halkaa dastuurku sheegayo oo xuquuqdii muwaadinku inay shaqada leeyihiin ay qaban karaan oo dastuurku caddeeyey xeerka number 72 ee 1995 ee ah socdaalka qodobkiisa 24aad ee ogolaanshaha shaqo waxa uu qorayay sidan qofka ajaanibka ah kama qaban kara dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ha ujeedadiisu tahay faa'iido doon hadduu shaqo markaa ka qabanayo waa in ay wasaaradda arrimaha guduhu ay ogeysiisaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay-adda kaleba in shaqadaasi mid muwaadini ka qaban karo sidoo kale xeerka ururada shaqaalaha ee number 2020 waxa ujeedadiisu tahay qodobkiisa afraad in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha rayidka xeerkaasi gebigiisu wuxuu sameeyay in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha rayidka xuquuqda shaqaalaha rayidka la ilaaliyo kow waxa ka noloshayda shaqaalaha ayaa kow ka oo ah in daa shaqada aan qaban karno ajaanibka laga qabto marka ajaanibka markaa ku soo in yar ka sheego iyadoo dheereeyay shaqaalaha ajaanibka wuxuu dalkayga si baaxad leh u maashiyay shaqaalaha ajaanibka dalkayga way isku soo tilmaameen dal la helay oo cidna hoos oo lahayn ayaa la ogaaday cadaan iyo madowba waa la soo maashay wala qabsan waxa dhacday shaqaalahan ajaanib waddanka u dhashay shaqaalaha dhismaha de guurka ugu yaraanaya kol dal shaqo ku jira yaa diidan kelmadda guurkii shaqaalaha dhismuhu ugu yaraanaya maadaama ay shaqaba ku jirto shaqaalaha ajaanibkuna dawo badanaya ilaa waa nin shaqaynaya cilada naga haysata waxa weeyaan dee shaqaalihii ajaanibka hadday shaqadii galaan dee gurigii hablahayaga iyagaan dee meel taa doorle siirkayga naga baqo in xanuunada baraska
dalkeena aan hore uga jiray oo soo batay taa ajaanibkan aan soo saarayna sixirka iyo dhaqanada xun lafteeda ajaanibku nagu leeyahay nagu saameeyay xataa saxaafadii waxa dhacday niman ajaanib inay saxaafadii ay muwaadin iska dhigeen oo ka hadleen oo markaa dalka wadda dawladda kugu geli kara kuwa ku eegay af Soomaaliga oo bartay inama saxaafaduna waxa u dhigayaan garabka ku ogeyn maxaa kala tuumaanay waana ajaanib taasi waa dhibaato jirta waxaan u aragnaa waxaan ka cadeynaa in xukuumadahan iyo loo shaqeeyayaashii kalaba ay naga jeclaadeen ajaanib in shaqada ajaanibka waxaan ka cadeynaa wax cashuuro ma bixiyo wax cashuuro ajaanib bixiya ma jiro حتى لعبت كفيلك هيدا السعودية اللي قاعد كفيل لا عسكر مضبوط نوع هذا نكا وتاك كبحية نكا وحول ما بحيسهم نكا أجانب كها أفرق واحد بيسكوها كو نقصوا وصوق على وتك بلا حس وحش تبصير له وين لبا هي دي سما فلا بدن وهلا ديارنا مع العروت دوار قبحية بساعة مع العروت دوار قبحية دي النادي ذلك الحين وجانب كذا لو بلغنا ميرون أو شقة السنة وحنا نعمل كان جانب كقول هذا الشعب كان يدرس برا هايستو أباري هايستو حتى نشغل كنت رسوا شغل الدين هذا جانب هايستو إحنا قد عدنا إن عشرة معاش شغالوا الدرجة وأنا بحلو السنة تيجي لبكورية كوريا لا تكي 1.04 بليون هل بقولي 4 بليون أيام بحنا 10 باع مشترك الضرب كله أنت هم بيه صدق دور ما نقول والله باع مشترك الضرب ما حنا قصوا قاعدين بس لازم ولا شغلنا هذه شغلة أنا تا 10 ثواني بحنا مركا حال أكا مسكوت تاجنا أنكسو قبل يا أفرط القضب أنكسو قبل الحوكي خطبته وين الدول كلها قد تقضب كلامات إن كل عبورته شغالها يلا شقية إحدى حالين ومعني دنيك يودك أول شيء ديلا بيليون لا إسكتك وحبا ما قرنا مسؤولين تي يشعب كيبوعي كدكتن هالكودك شغالها ودك وحبا ما قرنا يو تاوعن كلنا يقبرنا وحلك يقولون شغالات دوت رسمي أنا لقوي جمادان وصحافتنا كسوق يقشوا هل دوت هم لقوي جمادان marka waxaan leeyahay xanala abuuro dood dhaxaadina dawladda ha gasho oo yaa xagee tagna barnaamijna qaraya miyaan hurdi karnaa qiyaamaha dadku waa inay shaqo galaan baan doonaynaa nabadgelyadana waa ilaalinaa dawladdeedana waa loo ogolnahay axsaabteeda waa loo ogolnahay shacabkeega waa loo ogolnahay baa mushtarigayga waan ku faalanaa waan ogolnahay waa dadkii aanu shaqeynay anaga hadana la ogolaa marka waxaan doonaynaa xukuumaddu qodobka labaatanaad xeerka ku yaala oo 3 sano doonaynaa xeerka ku yaala ee aan inta sheegaya dhaxdhaxaadinta xeerka ha dawladda samayso waayo waxa lagu qori lahaa ninka ajaanib siiyo shaqo dambigii qaban lahaa qodobkii qaban lahaa ayaa lagu qori sidoo kale qodobka 5 ee xagga shaqaalaha reerka ku yaala qodobkaasi ee leh waa inay jirtaa baahi shaqaaleynta qofka ajaanibka ninka ajaanib doonaya wataa dee baahi buu sheegayaa mowta marka taa wasaaradana waxaanu leenahay gud xafiiska bixiya bilmishanka shaqaalaha ajaanibka waxaanu doonaynaa in urur walba lagu daro xubin oo maalinta dhismaha qof looga baahan yahay xubintii ururka dhismuhu ay timaado maalinta dhakhtar loo baahan yahay xubintii ururka dhakhaatiirtu ay timaado oo urur waliba goobjoog ka ahaado shaqaalaha ajaanibkee la siinayo fursadda shaqagalka marka halkaasaan ku qanci lahay oo ku arkaa in looga wakiil yahay ayaan wasaaradda shaqada ka codsanayna xagga waxaan hambaliyaynaynaa wasiirka shaqada waxa weeye hawshan way ka weyn tahay taa wasiirka shaqada ku cambaaraynaya wasaaradda shaqada midna maaha waa hawl ka weyn oo soo jirtay oo baaxaddeeda leh qarankaan guud ahaan u sheegayna wasiirkaygan waxaanu leenahay nagu horkac oo hawlaha dastuurku dhigayo ha naloo fuliyo adoo aan kugu mahadinayno maartay intaan noo qabatayna aanu tixgelinayno wasaaradda guud ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan leenahay nagu hogaamiya intan aanu ka cabanayno halkan yaalla
nagu hoggaamiya nagu qabta guud ahaan waxaanu la tegaynaa haddii aan la idhaa oo arrinteeda u gudbin doonaa guud ahaan arrinta shaqaalaha rayidka guddida arrimaha bulshada baarlamaanka guddida arrimaha bulshada guurtida wasaaradda arrimaha gudaha intaba waxaan u gudbinaynaa bayaanada laga soo baxaa qoraal ku saabsan innakeena waxaa dhina ka raba annaka lafteeda ceeb oonu leenahay maxaa inoo keenay shaqaale xun waynu leenay aqoon darro waynu leenay maxaynu innaku shir u qabsan weyne oo layskugu canaano waayo shaqaalo halkee baynu in ka leenay maxaa loo odhan waaya halkan aad joogtaan maanta ururka shaqaalaha dawladda naga baxsan miisaaniyadda inaynu iska bixino innaku weeyaan wax ururahoo shil qaadhaana bixiyey oo halkan keenay fartaa taago maxaa lagu shaqaynaya anigu intaan joogno waxaan qabanaa shirweynihii rooshka lagu dooranayay xilkana waan wareejinaynaa waxaan se ina kula dardaarmayaa inaynaan socon kareen shilinkiinood ku socotaan mooyaane inaynaan xuquuqdiina meel gaadhin kirada waa lanaga bixiy dowladda naga bixisa administrationka dowladda naga bixisa inaynu inagu iska bixino weeye dowladda xaq way nagu leenahay oo 1 bilyan 04 ayaynu cashuur bixinaa laakiin haddana waxaa fiican ninka doonaya in xuquuqdiisa si gaara uga hadlo waa inuu lacag u leeyahay ku hadlaa oo aynu hadalnaa mar walba joogtaynaana saxaafadda joogtaynaa kulanka joogtaynaa inaku istababarnaa midowdaa waxa weeyaan qabyaaladda waxaa lagula dagaalamaya midnimada waxa alla waxaa kale oo dhan meelinba dabada saaraan maanta halkan isugu timid saxaafadda marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anigoo ku bilaabaya magacayga axmed aadan xaamid afhayeenka ururka shaqaalaha dhismaha ee tawakal waxa aan maanta halkan isugu nimid oo aanu u qabanay kulan warbaahineedkan oo isoo kaaya saaray shaqadii dhismaha iyo guud ahaan shaqaalaha rayidka shaqayn jiray shaqooyinkii ka shaqayn jiray ee dalka oo ay la wareegeen dad ajaanabi inaanu halkan uga dirno baaq hay'adaha qaranka oo si baaxad leh ay u qabsadeen dad ajaanabi shaqadaha guud ahaan shaqadii dhismaha waxaa la wareegay dad ajaanaba oo ka yimid Kenya, Bangladesh, Yemen, Ethiopia iyo wax kaloo lamid oo inaan garanayn waxay dalka ku soo galeen iyo wax baahiyo inoo keentana garan mayno xirfadda ay sitaan ay la yimaadeen waddankeena ma aha xirfad ama ka fiican ama ka horumarsan tii dalkeena ka shaqayn jirtay ka shaqaleen wax ku qaban jirtay waxay noogu dhisayaan oo dhowadii iyo dhagaxii iyo jaajuurkii yaraynu saarsaari jirnay iyo jiingadii iyo looxii la isku nusbaarayay ayuunbay ajaanab loo soo waaray dhaliisha ay dadku ku dhalinayaan shaqaaleheen ee ay ku cambaarinayaan ay leeyihiin waa shaqaanay garanayn oo wax la taaban karo oo dawladdu cid u diri karto oo la daraasayn karo dad aan dadkeennii ka shaqo fiicnayn innagoo aan qabin baahi ajaanab oo dadkeenni shaqalayo gidaar walba taagan yihin wax macquula ma aha iyo waxaanu aqbali karna mid weyn in ajaanab loo soo waariyo waxaanu markaa halkan baa uga diraynaa hay-adaha dawladda dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan golaha wakiilada wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaheeda amniga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaan hay-adaha dawladda ee kala duwan waxaanu gaadhsiinaynaa baaqa shaqaalihii dhismaha shaqalahay shaqadii ay qaban jireen ay dalka ka hayeen ay heerkaa ku gaadheen magaalooyinkeenna iyo dalkeenna waa laga farabixiyey dad ajaanab baa ka qado meelay ka yimaadeen aynaan garanay waxaa markaa baaqa aanu diraynaa wey tallaabo degdega oo arrintaa wax ka qabanaysa in dawladdu ay qaado jawaab dhaqsaana naloo keeno annagoo ammaanka iyo kala dambeynta iyo nidaamka ilaalinayna mar walba annagoo qarannimada iyo jiritaanka dalka ilaalinayna annagoo muwaadiliina waxaanu baaq diraynaa aanu ku celcelinaynaa mudane madaxweyne oo adigii ku ololeeyey shalay adigoo qodobada dastuurka taxraacaya shaqa muwaadil qaban karo ajaanab lama keeni karo adiga oo madaxweynahana oo adigii berbere kaga khudbadeeyey tii haddaba beddelkeedii de waxna saqe ma garanayne isbeddel weyn baa ka jira jawaab dhaqsaa si dhaqsaa arrintaa baaqeega in looga soo jawaabo wax kastoo maanta materialka wax lagu dhisaa kordho oo kordho si kasta kordho waa dadka waa lagu kordhiyaa dadka wax lagu dhisay waa lagu kordhiyaa oo shaqayaasha waxa uu sheegayaa war shilinka yoomka shaqaaluhu halkuu kori la'yahay inay xukuumadda iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu inay dabagal ku samayso oo inay ilaa 2000 qaadanayay 60 kun kuligii maanta waxbuu tari maaso ninkii farsamayaqaanka waa la mid dhibka kale dalka caamahaan oon kala simanay mise maadaama materialka marka kordhaba yoomkii la kordhinayo lacagtii iyo wixii looga baahnaa yoomka shaqaaluhuna waynu kordhaa
baahiyahooga taanaad uga hadlaya waxa weeyaan taas iyadoo u sii dheertay in intii ay kasii shaqaysanayeen maanta dee taa loo soo waariday ee dadka ka ganacsada ajaanibka aan halkan fariin uga dirayaa waar haddii aad naga xishoo weydeen oo dalkiina iyo dadkiina u tulan weydeen waad naga baqan doontaa mustaqbal dhow. Asalaamu calaykum بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد دوميها حيلك الجود الرضا شغالها أساس كله دومياش دي مدحجي هجان كأورو شغالها رسمها توكل وجهان الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذا الكي إنه هذا المناسبة يمدي سيام بوح ربنا وكم إذا واحد تعبتي هذا هذا الشرعينا هذه دستور هاي هذه حير مرتون هاي يحتاج تدوين هاي بحسي في حنوها هذيك الدنيا حيل الرضا شغالة اسمها يعني الرضا يعني شغالة الرضا شغالة عفوا مركا يعني كل هذا الكلام بحكم صار سنة ولا قضاء اسكان خوان وأيومهم سنت هاي أجانب كأوبريها الضمبي مشاكل كي نوجو هنا هذا ما هي شغالة اسمها أبوك بدها شغالة هذا الكبار هايستا قلت كل واحد صباح الله ما هذا واحد كلمة به هدي ربع العليو waxay isku bedeshaa baa marka dambe buubu marka hadii xaalku san ka socdo waxa la leeyahay kun daba shaqaalo inay gacanta wax la tagaan bay iska noqonaysaa bariyahan aan hadallo iyo aan soconno iyo aan doodda iyo aan wax sameeyno arinkaygu imiga sanadahan dambeeyay ama guud ahaan sanadkan imika waxa ahaa mar ka dambaysa midaan ku hor taaganahay dadku inay gacanta ka hadlaan sababtoo ah way dhaaftay ajaanib qabo sideeda mar horta waxaad moodaa ajaanibka in la ugu ibtireeyba oo imiga wadadaasaan soo marayay galbeedka ka soo socoto waxa ormo safka isku haysa ee wax isxambaarsan iyo waxa lugaynaya iyo ka hadaafaya ilaahay bay ku keenay markaasaan is idhi haddaad waraabo ka qaado oo imiga isagoo cunayaad ka qaadana 5 sano lagu xidhaya controlka iyagoo odoodiistay marayaan labada isku qiimo qofkii haddaad qaado adigii lagu xidhaya 5 sano oo lagu leeyahay khani gusde iyo controlkii uu agmarayo qabanay waxaana lagu mahmaha caadi oo la yaqaan ninka waashmaanka ama gaarka ama leeyahay meel laalanaya guriga ilaalinaya cidda gudihiisa lagu ogolyahay uu yaqaan ninka immigration ka shaqeynaya askarigeena ilaalinaya xuduudaha ama immigration ka uu garan karaya uu fahmaya Soomaaliland dhexdeeda cidda lagu ogolyahay nin kastoo mas'uul qaran amba loo shaqeeya amba ganacsadahina waa saas oo kale uu fahmaya laakiin waa ogaan garab mar wax la iska wada arkayo oo la arkaya si dhab loo dhaafaya dabeetana markaa waxaad fahmaysaa dee in lagu soo daynayo mid walba oo aan dalkii sidii loo baahnaa madaxdii iyo cidihii ku shaqada lahaa ilaalinta ajaanibka iyo soo galootigu anigu shaqaynay wuxuu yidhi cabdiidan isagoo berisan oo kale xaalka shaqaalaha ka hadlaya habartii dusheedii dagaaladii ku nooray daruuruhu ku hore dadka wada helmoodo dowgarraacbay tiri malaa talada kuma dambe Amaariya degmo lagu haraadiyo sarfooyin buuxa inuu dubardalowgii dibadaha u suuday dib jirkii ku maqan yahay tan yartii shaqaaluhu daskar u weyn karin waa sad dumare yeelku xaalka shaqaaluhu runtii maanta marka loo eego haddii yoomkay qaadanayaan tahay iyo haddii ay tahay shaqada ay helayaan oo aad u yar iyo haddii ay nolosha kale wasaaradda iyo sixir barrow saameeyay tahayba aad buu culus yahay waana wax aan jecelahay inaan dareensiino madaxdeennii iyo ganacsatadeenii iyo guud ahaan ciyaartii dalka waxaana aan shaqaalaha u sheegayaa dadku waa danley iyo hanley baan u kala qaybiyey dadka hankali imiga ee aan iyagu markaa duruufteena oo kale matalaynin way naga cabashiyo qayle badan yihiin way naga israac iyo ololo badan yihiin oo ninka kursi doonaya amba wasiir ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto amba agaasime ha noqoto ololo adag buu ku jiraa TV-ga kama faaruqo meel kale oo Facebook xataa kama faaruqayo intaa uu qaylinaya laakiin se inagoo xaalku marayo inay nafteennii iyo nolosheennii iyo jiritaankeenni uu saameeyey aad baynu u dhaqdhaqaaq iyo socod liidana ha loo samro ha loo adkaysto sida
سيدي سيك عشان لها لما أنت رفاعي نوجد مركا حوالي ما حد قال كلام حلاي عشان كذا القصة بدنيا آخر كمان وزارته قبصان طورا هو بنان ما يوم شغالها عادي جاهي أنا قاون ماي ميل كسته عشان كوي ما طورا إلا مركا ده جرعسي وقبصاني واحد كسته وطلع في شرح حفظ كسته قبصاني ميل كسته وقلي طورا مركا إذا هم حلانا وحد راوي يبرك هذه المسؤولين تقول له هذه dalka aad u dhalatay dadka aad u dhalatay in la yiri dad tawtay haduu leeyna gaarsiin meesha daraadeed u galeen dagaalkii tiiftiye kulka lahaa dib u dhaca ka maaray darajo u sugnaato guul baa u dagtay waxaan leenahay darajo ay sugnaatay oo madaxdii iyay noqonin oo maalintan uu garab uga baahanay xaqooda laga yimaado wasaaraddu way la shaqaysaa si fiican bay u qabataa agaasimaha guud iyo wasiirka iyo sida leader in kastoo qolada Fourier iska leeyahay cid wadanka looga baahay waa garanaysaane ku dadaal siyaad la dagaalanka ajaanibka naga qayb qaadan lahaydeen waxa markaa aan ku soo gabagabeynaya guud ahaan mashaakilka ajaanib maanta waa dhibta weyn ee shaqaalaha haysta xirfad la'aan iyo aqoon la'aan laga caban maayo wali waanay cid gacan siin hal seminar shaqaalaha looma qaban weligood iyo loo dhammaan xataa saa u shaqeeya sidii aanu aslan shaqada uga baranay baan u wadnaa dalka inta la iyaga dhisay marka bacdamaadii aan wax lagu taray jirin sabab loo caraqama jirtay wixii aan naqaalay ma aan hakranay hal gacan siiyo muwaadinka cabanaya ee miskiinka ah ee dan yarta ah shaqaalaha hal laga harameeyo dhibta ajaanibka ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu nahay dad muwaadiniina oo ka cabanaya shaqadoodii in ay la wareegeen dad ajaanaba dalkeenan mooye ma jiro dal uu ajaanibkii kaga xaquuq badan yahay dalka muwaadinka waayo waxa weeye dadka muwaadiniintii waxay ka cabanayaan iyagoo shaqadii xirfad u leh in mid kasta oo waddanka in yaroo lacaga ka urursaday uu iska doonto qof ajaaniba dawladdii ku kaantarooli lahayd ee odhan lahayd sabab muu ku yimidna aanay jirin arrintaasi hadda oo aan maaragtay cidi odhanayn muxuu ku yimid uu kaga xirfad roonaaday kii muwaadinka ahaa marka waxay noqotay dadkii muwaadiniinta ahaa in ay soo garbaduumaan ay soo fadhiistaan dee mar haddii shaqadoodii uu dad ajaanibi ka shaqaynayaan waxa weeye dee qof hashiisii lagu hormaarayaana dee fadhii maayo waxa weeyaan wuxuu qabtaa waa inuu gacan ka hadlo marka dambe haddii warbixintiisa iyo cabashadiisa hoos loo eegi waayo oo la odhan waayo maxaanu qofkani garanayn qofka muwaadinkii waa inuu yeesho xuquuq ka kaataroosha waayo adduun weynaha way jiraan dad dee muwaaridiina oo taga laakiin markay dadkoodii wada shaqaynayaan ayay iyagu soo dalbadaan dad muwaaridiina laakiin tan dadkeedii oo wada bilaan camala in maalin walba ay iska noqoto in la keeno ajaanib oo kiinyaan leh oo bangaladesh leh oo ayu nooc ciday doonaan leh oo shakhsiyaad gaari weliba ay gacanta ku hayaan waxaan u dul qaadan karaynaa haddii aanu nahay shaqaalaha maaha gaariya ayaa laga hayaa samirkuna asraagow wanaagiima soo sido in badan waanu samrayno oo waanu eegayna laakiin waxaanu faraynaa hay-adaha qaabilsan wasaaradda amniga dawladda hoose baarlamaanka halkoo madaxweynuhu ugu sarreeyo waan arrinta dadka shaqaalaha hoosa loo eego waa kuwaasoo halkaasay fadhiyaane oo waxay ka cabanayaan mashaakilkaa shaqadoodii iyagoo aan laga xirfad roonayn dee dana kale oon la garanayn loogala wareegee ha laga si deg dega waxa looga qabto haddii laga qaban waayo dee waxay yeelayaan wixii u dana warsoo diyaarmaydi waxay danayn yeeshaan sidaas ayay arrintoodu ku soo urursan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan leeyahay dawladdu in badan bay ku ololeynaysaa ama madaxweynuhu lahaa muwaadinka shaqada uu qaban karo ajahanab ma qaban karo laakiin nooma muuqata inay dhacday marka aninka hatay waxaan leeyahay waxaa waraaba mahmaa wuxuu yidhi maanigaan rood ahayn reebaddii ahayn sarorkayga soo dhacday baan u sheegahay marka waxaan leeyahay in uu ka dhabeeyo wixii uu ku ololeeyey ama intuu madaxweynaha meel walba kaga gudbadeeyey ma hayno sidaa darteed waxaanu leenahay sida ugu dhaqsaha badan leh ana laga soo gaadho arrimaha noocaasna ka cabanaynaa
waxaan u sheegaynaa cid kastoo ay qusayso laamaha amniga kuwa arrimaha gudaha kuwa dibad cid kastoo ay qusayso ana laga soo gaadmanaya waxna laga qabto haddii laga qaban waayo wixii dhacana shaqo kuma jiro السلام عليكم لما واحد سلام يا وحي الشهادة ومدن محمد عليه الصلاة والسلام واحد كرام سلام يا مدحوينها قرنك مدحوينك وحدينك قدومية برلمانك ضمان أصحاب تقرن كورة ضمان شقارها واحد وقال لنا حقوق دي مواطن كامل وقمال وهي الدد النبي وواحد وقرن إنه أنا وحبنا التكنولوجيات أنا قرر ورين بلقي ضد ما أصلا waxa kaloon ku daraya hablaha Suuriya ka soo qaxay masiibada oo dhacday xijaab ku dul go'ay islaamka sunniga kuwaaba hal caawin dalalka mutarkani wixii bilaadanimada lagu caawin laakiin muruqmaalkii daaradda iyada dhexdeedkii ribeerinkiina aan isku haysan ayadoo aan waxba la kordhinayn wixii sixray ilaa labadii kun wuxuu ku bilaabay ragii waxa wada dhisay in la soo muwaadada dadka waana qabasho feed kumri marka intaas ku soo urursanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allaana isugu yimid aad baan u hambalyeynaya waxa weeye 2018 yaa BBC baan dhageystay iyo mana la wareysanay wuxuu yiri dad aan rag wadan aan rag balahayn baa ilaahayna keenay buuri aan dad wadan aan dad lahayn ayaa nimid buuri marka waxa weeye wadan kan isaga ah intii maamulka ahayd iyo intii ganacsiga ahayd dad hore u tallaabsatay intii shaqaalaha ahayd muruqmaalka ahaydna maanta xaalkooda ilaahay ma yaqaan marka waxa weeye nimanka odayaasha aan imika warramayo hore u tallaabsaday barnaamijkooda alxamdulillah oran mayno inta waxa yaga aan baranay wadanka u baranay bacda dagaaladii horta anigu dadka waaban ka yar wada weyn kulli hanbadii qoladii baa hore intii la imika barsayna ajnabi iyo Sri Lanka iyo Yemen baa naga qaato oo kuwa leeg wadan aan rag balahayn ayaanu nimid marka waxa weeye intii aan wax wada hayna madaxweynuhu ka mid buu ahaa intii aanu arrinka soo wada galay hore taana ku fogaan maayo kulli wala iska wada warhaya marka waxa weeye raamsiina nimayo naga horeeya alxamdulillah oran mayna anagu waxbaan jira hoosna loo soo eego